Io questa gente la capisco. È stato difficile anche per me. Venivo da questo deserto, non sapevo far niente, non ero un pescatore. A Mogadiscio sono andato in una cooperativa di pesca dove mi hanno insegnato come si lavora. Alla fine mi è piaciuto e così sono rimasto. Ho fatto tutta la mia strada e un anno fa mi hanno eletto presidente della cooperativa. Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer ee Afrika 3,330 kilomitir ayay leedahay. xeebtaasi waxaa lagu tiriyaa xeebaha ugu nadaafada badan xilligaasi badaha adduunka. badan oo run ahaantii ku jira khayraad aan caadi ahayn, inta badanna Soomaalidu kama ay faa'iideysan jirin. dowladii kacaanka waxay abuurtay in ay samayso iskaashato kalluumaysiga. iskaashatadaas kalluumaysiga ana waxa ay ku kubcin jirtay dadka ka shaqaysta. dowladii ama xukuumadii militariga uu hogaaminayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre Ilaahay ha u naxariistee, waxa uu dadku ku qasbay in wiigii 2 maalmood ay cunaan kalluun si ay u bartaan dadka. maxaa dhacay? dad fara badan oo Soomaali ah ayaa aaminsanaa kalluunka dadka cuna in ay yihiin dad fuqara ah ama dad maskiin ah. manfaca ama faa'iidooyinka uu leeyahay kalluunka maanan garan jirin. laakiin dad fara badan markii la soo qaxay ama Yurub la yimid ayay ogaadeen qiimaha uu leeyahay ama caafimaad ahaan ama muuqaal ahaanba. kalluunka waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ugu qaalisan adduunka. Dei nomadi che la grande siccità del 1975 sospinse verso la costa tornarono con le prime piogge alla vita nei deserti dell'interno. iskaashatada doomanka ay ku soo kalluumaysanayaan iyo qalabkaba waxaa siiyay dowladda. halkan waxaad ku aragtaan dadkii iskaashatooyinka oo loo akhrinayo howlihii ay qaban lahaayeen, iyagoo mar walba ku heesi jiray heesihii kacaanka uu lahaa. haddaba heestan ila dhegaysta saaxiibayaal, anigoo filaya dad fara badan in ay aad u xusuusan doonaan xilligaas. Noi pescatori della cooperativa Culmis di Mogadiscio, dice il canto, lavoriamo per il paese e uniti siamo i più forti. Mettiamo insieme le nostre energie perché la rivoluzione continui. Ci riuniamo di solito ogni giovedì. Il partito insiste sulla pesca perché potrebbe diventare una delle maggiori risorse della Somalia. In questa cooperativa c'è gente che viene da tutte le parti del paese e che il mestiere